السلام عليكم. كاني وبقركي كوكينتا ودروغيستيه دنيا ugu taajirsanaa waana aasaasها ميثالين كارتل oo ahayd warshad soo saari jirtay maandooriyaha noocyadiisa kala duwan caalamka mamnuuca ka ah ee kookanta loo yaqaano iyo tanan kale oo maandooriyaal noocyadooda kala duwan ah kuwaas oo dunida u iibgeyn jiray ninkan. taasi waxa ay dhaxalsiisay in uu mar ka mid noqdo todobada qof ee dunida ugu taajirsan. ruuxa aan ka hadlayo waa Pablo Emilio Escobar Gaviero, boqorkii daroogada. Pablo Escobar waxa uu ku dhashay Rio Negro, dalka Colombia, sanadii 1949. Sir Pablo, the boss, killing Pop, the king of cocaine, the king of crack, Baza Robin Hood. waa qaar ka mid ah magacyada kala duwan ee loogu yeeri jiray ninkan. maahan magacyo hal qaab ku yimid oo uu hal dabeecad ku kasbaday. qaar ka mid ah magacyadan waxa ay ka turjumayaan cabsi laga qabay isaga, halka qaarna ay u taagan yihiin sharaf iyo maamuus oo ku dhex lahaa bulshada gobolkiisa. waxaana xusid mudan inuu mar xildhibaan noqday ninkan Pablo Escobar, isagoona iskuulaad iyo goobo kale oo bulshadu ay mahadisay uu ka dhisay gobolkiisa. cisbitaallo waaweyn iyo iskuulo ay wax ku bartaan dadka danta yar ayuuna dhidibada u taagay. inkastoo taasi aysan wax sidaas u weyn ka bedelin dembiyadiisa iyo dhaqankiisii xumaa ee ka baxsanaa bini'aadanimada, maadaama uu ahaa ruux joogtayn jiray dilalka dadka oo waxa uu mar walba si fudud isaga hor wareejin jiray qof kasta oo waddadiisa soo gala kana hor yimaada fikirkiisa, sida siyaasiyiinta iyo dadka isku daya inay ganacsigiisa la tartamaan. dilalkana halkaas ayuu ka wadi jiray. Pablo Escobar waxa uu ku soo barbaaray Medellin, waxa uuna muddo kooban wax ka bartay University Anatoma Latino Americana of Medellin, laakiin waa uu ka tegay jaamacaddii isaga oo aanan qalin jibin. taas beddelkeeda waxa uu bilaabay inuu galo faldambiyeedyo yaryar sida iibinta sigaarka sharci darrada ah iyo tigidhada bakhtiyo nasiibka been abuurka ah iyo ka qayb qaadashada tuugada baabuurta. horaantii 1970kii ayaana waxa uu bilaabay in uu u shaqeeyo muqallasiin kala duwan, isagoo inta badan dadka qafaalan jiray oo madax furasho ka qaadan jiray. 1976kii Escobar waxa uu aasaasay Medellin Cartel oo ahayd warshad soo saari jirtay kookeenta budada ah. waxa uuna dejiyay jidadkii ugu horeeyay ee tahriibinta ee uu doonayay inuu u iibgeeyo gudaha dalka Mareykanka. uu arkayay halka kaliya ee ganacsigiisa uu si caalami ah ugu faafi karo, sidoo kale uu faa'iidooyin caqliga ka weyn uu ka soo xareyn jiray. kookeenta waa mid ka mid ah daroogooyinka ugu halista badan dunida. wadamo dhowr ah oo dunida ku yaalana mamnuuc ay ka tahay in lagu dhex iibiyo laguna dhex isticmaalo si lamida la geliyo. gelinta kookeenta Mareykanka waxay abuurtay baahi weyn oo loo qabo kookeenta. 1980kii waxaa lagu qiyaasay Escobar in bishii Mareykanka uu geen jiray shixnado gaaraya 70 ilaa 80 tan oo kookeenta ah, taas uu ka soo daabuli jiray dalka Colombia. waxaana taasi ay dhaxalsiisay in si dhaqso ah ugu noqdo mid ka mid ah dadka ugu taajirsan adduunka. sidoo kale waxaa xusid mudan inuu dunida dhaafin jiray dadka ka soo horjeeda gudaha iyo dibaddaba ganacsigiisa, taasoo horseeday xasuuq iyo dilal uu u geystay saraakiisha booliska, garsoorayaal maxkamadeed, dadka deegaanka iyo siyaasiyiin kale oo caan ah. doorashadii baarlamaanka Colombia ee 1982 Escobar waxaa loo doortay xubin ka tirsan wakiilada oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqa Alternative ee Liberal, waxaana loo arkayay xubinnimadaas ay soo dedejisay inuu mas'uul ka ahaa mashaariicda bulshada sida dhismayaal guryo iyo garoomo kubadda cagta. balse hamigiisii siyaasadda Escobar waxaa fashiliyay dowladaha Colombia iyo Mareykanka, kuwaas oo si joogto ah gadaal kaga riixayay in loo xiro isaga, iyagoona bannaanka keenay dambiyo waaweyn uu galay ninkan oo qaarkood caddaymo ay ula yimaadeen. waxaana soo afjarmay hamigiisii dhanka siyaasadda. Mareykanka iyo Colombia ayaana fashilay ninkan. sanadkii 1991kii waxa uu isku dhiibay dowladda
waxaana lagu xukumay 5 sano oo xarig ah isagoona lagu soo oogay dacwado badan. laakiin wuxuu heshiis la galay madaxweynihii Colombia Cesar Gaviria isagoona wax walba ay u fudud yihiin oo awood u leh in laga sii daayo xabsiga. ayuu 1992 baxsaday waa uuna dhuntay. mas-uuliyiinta gacanta ku haysay ninkan waxay isku dayeen inay u raraan meel lagu hayo balse waa uu ka baxsaday. waxaana bilowday in isaga la ugaarsado iyadoona 1993 magaaladiisu ay ku dileen booliska qaranka dalka Colombia maalin kadib dhalashadiisii 44. qaar badan oo ka mid ah dadka ayaa waxay dhaleeceeyeen dabeecadaha foosha xun oo ay saldhig u yihiin dembiyadiisa. sidoo kale dadka qaar ayaa si weyn u sharfa oo waxaaba ugu yeeraan Robin Hood maadaama uu fidiyey waxyaabo badan oo loogu talagalay dadka saboolka ah. dilkiisa ayaa waxaa aad kaga xumaaday dad danyar ahaa ee dad kale isaga uu caawin jiray, laakiin kama aysan warhayn dhibaatada ninkan u geysan jiray diirarka afduubka iyo kookeenta halista badan ee daroogada uu ka ganacsan jiray. balse sida u jeclaayeen shacabka gobolkiisa ku nool darteed 25,000 oo qofood ayaa ka soo qayb galay aaskiisa. hanti fara badan ayuu tacbay ninkan. hantida uu haystayna bangiyo ma uusan jirin sababo la xiriira in hantidiisu ay ahayd mid bartilmaameed ah oo min burcad ilaa iyo boolis ninkan ay ku raad joogeen. marka uu taajir noqday ninkan wuxuu abuuray ama iibsaday guryo fara badan. ugu dambeyntiina waxaa toogtay ciidamada booliska dalka Colombia 1993. laakiin waa mid ka mid ah ragga daroogada ugu saameynta badnaa ee dunida soo maray, kuwooda ugu taajirsanaana ku jiray, kookeenta halista badanna dalka Mareykanka gelin jiray. muuqaalkii maanta aan kaga hadlayay Pablo Escobar bihii daroogada intaan ayaan kusoo koobayaa. tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.